ibo adiguna ka sii daa haddee saacado halumin saan idhi sax weeyo anigu waan soconayaaye laakiin siyaalaha adduun subaxba waacayn mana aha sidaad moodayo aad sawiranayso qurbahaad ku selelayso adigu maalkana samiica baxsho siya aadmiga umana kala sokeeya nafluhu saamiga arsaaqda qurbaha aad ku selelayso adigu salaamayso isna suudal baa lagu tegaa soco tahriibeedo mana aha wax saaweyn inaad sahal ku gadhaye ragga soo degaayana hadeer maahadsad mooday waa wada safiih iyo midaan sax u shaqaynayne midkoodii saliimana si fudud umaba soo dhoofo anigana sidaad sheegtayaad horeba ii siisay sooskii cilmiga baan ah iyo subane ardaya waxna kama sarreeyaan dunida saamiga aqoonta iminkana sureerey walaal waan soconayaaye ilaahay sidii khayr qabto saxa haynoo yeelo gabay uu dheer yahay intaasaan ku joojinaya aad iyo aad baan idiin salaamayaa inta dambena dib baan idinka sheegaya abwaanka aad iyo aad buu umahadsan yahay sugaanta quruxda badan haddana bahdii waxaan ku jirnaa weli hal abuurka aadan jaamac ogle ustaad aadan jaamac ogle ku soo dhawow barnaamijka kala soo dhaweeya ustaadka soo dhawow abwaan بسم الله الرحمن الرحيم sida uu ustaadku sheegay anigu kole abwaan ma yihiin kole waxaan ahay hal abuur socod barada weliba kole dee qofka soo kicina waa in waxaa laga sugayaa un stageka wuxuu loogu yeedhay inuu ka hadlo waxaan halkan isugu nimi madashan quruxda badan kole hadalkaygu in yaroo tixa iyo xoogay tiraaba buu isugu jiri doonaa tiraabtaan ku horeynayaa waxa weeye waxaan halkan isugu nimi laba ujeedo ahayd inaynu dhiiri gelino wax akhriska iyo inaynu wax qoraalka dadka faraha badan ee buwaagta soo qoray aynu ku dhiiri gelino iyagana inay wax sii qoraan oo aynu wax ka iibsano oo buugtii iyo maskaxda ay geliyeen aynu ku abaalmarino inaynu ka iibsano taa waan dhiiri gelinayaa in kolley ay si fiican loo iibsado waxaa kaloo iyadana muhiim ah inaynu isxasuusino kolley dad islaam aynu nahay wax kastoo aynu qabanano ama meel kastaan isugu nimaadno waxaynu mudnaanta koowaad siinaa waxa weeye waa diinta islaamka madashan aynu isugu nimi ujeeddada aynu isugu nimi waxay ahayd waa qoraal iyo akhris maxay diintu ka qabtaa qoraalka iyo akhriska inaynu isweydiino dad islaam aynu nahay waayo waxaynu leenahay inta badan laba kafadood oo ah kafadda diinta iyo ta dhaqanka oo wax kastoo aynu qabanano aynu ku miisaanno ta ugu mudanna waxa weeyaan waa diinta waayahay waxaa ugu horeysa oo aynu miisaanka ku saarana waxa weeye diinta islaamka aayadihii ugu horreysay shantii aayadood ee ugu horreeyey soo dega saddex aayadood oo ka mid ah waxay ka hadlayeen wax akhris iyo wax qoraal waxa weeyaan iqra bismi rabbika alladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra rabbuka alakram alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam waxaan odhan karaa bandhigii ugu horreeyey la qabto adduunkan koonkan lagu qabto qaar luxira buu ka dhacay waxaana loo qabtay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam jibriil ku yidhi akhri ma ana biqaari ma akhrin karo akhri ilaa markii dambe shanta aayadood isku xiga ay soo digeen marka waxa weeye kii halkiiba inuuna kasii wadananaa oo labada ujeedde aanu sheegnay ahayd inaynu wax baranno waxna qorno ayaa aayadii ugu horreeyey ee soo dega ay ka hadlayeen muhiimadda markaa ay leedahay diiniyan halkaasaynu ka fahmanaa kolley kusii dheeraan maayo iyadana waxaa xusid mudan inkastoo aan aad ugu ololeynayey iminkana rabo inaan madashan oo kale la siyaasadaynin in la xuso xilligii farta soomaaliga la qoray haddii aan far soomaaliyeed la qorin waxaan aynu buug iiminaynaa lama qoreen cidda la qortayna waynu garanaynaa 1972 baa la qoray
waxay ku jirtaa google-kay ku jirtaa facebooka waxa weeye afafka caalamiga ah lagu isticmaalo social media bay ku jirtaa waan soo hadal qaadayaa waayo waxaa iga galay xagga inaan galo qoraalka ila galay waan gelayaa wax ka soo noqonayaa allah naxariista maxamed siyaad barre dawladdiisa bay ahayd 27kii talinaysay waxaa markaa qoraalka iyo farta Soomaaliga guddiga loo saaray iyo qoritaankiisii ay ku guuleysteen inay fartaas qoraan qolooyinka markaa maxamed siyaad barre wuxuu ahaa madaxweyne siyaasi buu ahaa laba qolay Soomaalidu u kala qaybsan yihiin qolo u taqaana haliyey iyo qolo u taqaana dhiigyacad waayo labada qolo hal qodob isku raacsan yihiin haddaynu nahay Soomaali waxba isku ma raacno laakiin halka waxa isku raacsan yihiin waxa weeye inuu ka tegay Soomaali inuu ka tegay far Soomaali maanta nool oo adduunka wadamo waaweyn oo kamid ah aysan afkooda Google iyo Facebook iyo internet iyo meel aysan ku jirin laakiin isaga ay wali ku jirto marka inaynu xusno bal inta aynu ku kala duwanahay halkan naga dhigo inta aynu maxaan ku dhahdaa isla ogolahay inaynu xusno aynu soo hadal qaadno baniyadana qodobkaas ku darsaday ma badinayo kulay hadalka waxaan markaa u jeesanayaa iyadana aan xusayaa halgamo kala duwan baa umad soo martay halkiinka ugu wax qorista waxaan jeclahay inaan xuso ustaad sheekh aw qoraa taariikhyahan aw jaamac Umar Ciise allah u naxariisto aw jaamac Umar Ciise wuxuu soo maray halgan aan la dhayalsan karin oo qorista 1922 oo hal sano iyadoo burburkii darawishta ay sii jirto buu ku dhashay deegaanka Qandala inuu deegaanka Qandala laftiisu ku dhasho soo deegaanadan ka soo jeeda waxaa sababay maxaan ku dhahdaa burburkii iyo barakicii ka dhacay taleex xarunta darawishta marka wuxuu sameeyay halgan inuu wax qora af ma jiro dadkii way kala yaaceen wax lama haysto waxa weeye dadku way kala duwan yihiin dhulku waa kala fog yahay يعني أنت هسه دبعته أيو أدبر أضايقي وسوق كارسية إلى 27 كي سو حتى أنا كم بذها قدي كوبي طبعا كسرنا شقيني سي كوبي لحظة كي إلى 27 كي شقيني سي إن أي فرصة مالي أنت أنا كم بذها لبده هالجنب وكقريب قال هالجنب كينو عربي وحكوسه قرا سونا كارسية فرتين لفتين أنا حق قرية استيت مكها أيو كشري استجنا إن حسنه على نحرس سنة كورابي وايو مدرسنا وكلا مركز يسوون ما نروح على القضاء أيو وين الحصة حلية جديدة halkaas aan inta ku dhaafo waxaan kaloo aan jeclahay kulay reelas caanood waxa la yiraahdaa di xaqa aqoonta iyo hal abuurka kuma wanaagsana laakiin waa been faaftay sababta xukuma mahdaa been tagtay run ma gaadho samahayn waxaan aad iyo aad u ognahay markaan soo qaadano Jaamar Umar Ciise ragii ka horeeyay aynu soo qaadano xaqa aqoontana aabiha aqoonta Soomaaliyeed Maxamed Ibrahim Abiyen Allah naxariisto أساسي ما حد كسيد دم يجمع عدنا ومدة الصومالية ديجان كانوا ها لما أريمات ما يسوي ديا مركز تذكر ديجان كودش هذا مونا دير شاي سوري سرنو واحد ترى هالك أكو برتعبد بلا عبد إنه لا سعره جاي سببته أبى تقولي يوم بقرا مركز هالك إنه واحد أو عبد بلا عبد مين ترى حرقيسي يحبر عيهين سببته هو تذكر مجا عليه ما حصل عن تبضن وكو مثل لما وحان سرادات فهم بدن معها ولا فهم بدن يهدي يمكن فهم كنا ملا تيتل بنقضي هذا الله فانا ولا لها waxaan aan halka ku joojinayaa intaas marka waxaan tirin lahaa maansayar oo kulay anu inta dadka inta badan maansooyinkoodu ay dhaadheer yihiin ma yihiin sababta waxaan ka qabaa waxaan ku dhahaa sensitive inay aad u dheeraadaan dadku waxa laga sheekeynayaa maanta waxa la akhriyo waxa ku dhahdaa waxa la qoro waxa la qoro faa'iidooyin baa ku jira hadaa maanta ku leeyahay faa'iidooyin baa ku jira iga qaadan maysid laakiin bal inaan maasahaan kugu soo gudbiyo ayaan filayaa dadkeena wax qabtana dadka wax qabtana aan xusno waxaan ka bilaabaysaa maansadu bulshadii wax garatay wax xub baratay aad baabuug uu farshaxan qoray bandhig weyn u qabatay cabdi baan bogaadinoon bilad sharaf gudoosin cabdikariin soo cabdi baan bilad sharaf horta markii hore gudoonsiyay maansada bilowgeeda oo laba arrimood oo maasada marka ku jirta waa bulshadii wax garatay inay bulshadu wax garato iyo inay bulshadu wax barataana way kala duwan yihiin aqoonta la yiraahdaa waxa weeye midna waa inborn talent aqoon lagu dhasho midna waa mid la barto oo iskuulka loo tago marka labada dadkii isku darsada waa bandhigan oo kala iman kara uu macnaheedu cid kale ma iman karto bulshadii wax garatay wax u baratay aad baabuugu farshaxan qoray bandhig weyn u qabatay cabdi baan bogaadinoon bila sharaf gudoonsiin
buuda maansadaan wado aan idiin bayaashee waa badhaadhe guud iyo wax barwaaqo laga helo bogog iyo akhriska badan ee nolosha kuu bila baasad maxay ka hadlaysaa maanta dhan waxaan ku idhi waxbaro ama wax akhri maxaa nolosha kuu bila horta oo badhaadhe iyo barwaaqo aad ka helaysaa maansada akhriska waayahay waxaa ugu soo horreysa waxbarasho iyo xog waxaan ku idhi bini aadan baa tahay bahalaha ka duwan oo barashiyo xogaha kale ku dhiteeya biiro ayniba barbaar iman bartiisii usii dhigo maxaa loo jeedaa waxaan ku idhi bini aadanku muxuu bahalaha kaga duwan yahay kale ama makhluuqaadka kale ilaahay iqra bismi rabbika alladii khalaq labada khalaqee isku xigta khalaqa alinsaana min calaq iqra bismi rabbika alladii khalaq kii wada abuuray bahala iyo bini aadan bay haddana muxuu ilaahay la sii baxay khalaqa alinsaana min calaq qaar bilaa ila sii baxay insaanka marka insaanka muxuu kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay in generation aqoonta uu sii gudbiyo halkuuse ugu sii gudbinayaa markaa wuxuu ugu sii gudbinayaa waxaan ku dhahdaa qoraal buu ugu sii gudbinayaa sidaa darteed wax akhri aad heshid xogtii dadkii hore waxay qoreen iyo waxbarashadii horeba intaba bini aadan baa tahay bahalaha ka duwan oo barashiyo xogaha kale ku dhiteeya biiro ayniba barbaar iman bartiisii u soo dhigo waa kow maxaa kaloo laga helaa baan ku idhi caafimaad baa laga helaa markaa wax akhriso waa caafimaadaysa hadday xanuunsanaysa sidaa wax akhriso adar way caafimaadaysaa wax akhri saa u caafimaadaysaa haddii nolosha buuq iyo baraadkaaga qulub galo waxaa laga bogtaayo maan lagu baxnaashaa akhriskoo la badiyee kiish daawo buuxso kiish daawo halkan macnaha waxaa yaalla waa buuge waxaan ku idhi kiish buuxso daawo ah meesha waxaa yaalla waa daawo buugtani adeer sii buuxiso haddii xanuun ku hayo yar stress iyo wax ku hayaan markaad buugta akhriso adaa caadis ka noqon doonaa caafimaad baa laga helaa waayahay aragti buugta maxaa kaloo ka helaysaa aragti baa ka helaysaa ama aragtidu waa labo mid buug uu qof qoray aragti ku jirtaa iyo mida adigu markaad doonayso haddaa aragti cusub doonaysana waxa weeye buug baa ka dhexeli haddii arrin aad markaa ka yar shakido ama wadaad ku yidhaahdo hebel waa saas iyo maxaan ku dhahdaa ama siyaasi ku yidhahdo aragtida hala sameeyo waxa weeye marka waxaan ku yidhi sidaas sidoo kale haddii aad yar boodo aragti buufis kaa galo haddii aad ka yar buufiso wuxuu qof kuu sheegay ama siyaasi ama wadaad kuu sheegay aad yar buufis kaa galo waxaad samaynaysaa ama fikir bilowgiis baadidoonkii aad tahay ama adiga laftigaa waa is leedahay wax bilow waxaad samaynaysaa akhri beydka dhiganaha jid baa ku baxaya adar wax akhri adaa markaa helaya in waxaanu qofkan kuu sheegay run yahay iyo in adiga laftigaa wixii aad raadinaysa ay heshay oo arlaba aftahanimo qofka uu ka akhris badan yahay maxay uu ka aftahansan yahay maxaa kuu kordhaya erayaa kuu kordhaya fara badan waxaad baranaysaa erayo adiga kaa maqnaa maskaxdaada buuxsanaysa sidaa darteed adar wax akhrite waayahay waxaan ku yidhi adoon hadal birayn karin waxaa la yidhi hebel hadalka ma laayo dee hadalka ma laayo soo maaha war hadalka laa adoon hadal birayn karin laguu yaqaan baraaciye war waa kii sheeka xuntahaaba meesha ka hadlaya marka meel aad soo istaagto anaga aamusiyaa lagu oranayaa moogta hadday lagu yaqaan baraaciyahaasoo aad dee hadalka aadan u aqoon barqamaalka akhriska afgarooca kaa bi'in oo kugu beeri eraygee habaal marin aftahanimo markaad wax akhriso adigaa taas ka noqonaya haddii aad xoogay yar kaa yara jajaban tahay oo hadalku ma garanaysaa midda kale waa mala-awaalka maskaxdayna waxay u baahan tahay inay wax mala-awaasho ay shaqayso mala-awaalka meel bilan maskaxdaa u baahan oo igu beer tidhaahdee ha ku noqon bakhaylkii baanashada u diidaye humaagiyada u baawee adar maskaxda markaa wax akhriyaysid beeshba koranaysaa wariyaa beeshka ku xiga waxaas sheekadaasaa sii dhici doonta maskaxdaada way shaqaynaysaa waayo qofka bilaadanka wuxuu jecel yahay inuu wax meel suuraysto haddii laakiin aad waxba akhrin mala-awaalku kaa dhimanayaa waxba suuraysan kari mayso qof dhintay markaa waxma dhaantid waaya xusuusta qofka ka akhris badan yahay waxa la yidhahdaa wuu ka xusuus badan yahay wixii beri mar soo maray badow baa hilmaamay xusuusaha ka baadhee habbay hoofo ilowya dhiganaha miciin bido oo baradaada geegee guriga sii dhigo dee buugta si aad wax xusato kolle maansada waa dheer tahay ustaadkuna in badan bay igu soo noqnoqday intaasaan kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad baa mahadsantihiin maanse qurux badan oo qiimo badan bay ahayd barnaamijkii baa noo socda weli si qurux badan kusoo dhowaada maalintii labaad baan ku jirnaa gelinkii dambe bandhiga caalamiga ah ee magaalada laascaanood bandhiga caalamiga buwaagta ee magaalada laascaanood hashtagga ha halmaamina waa hash LIBF 2019 markaa ha halmaamina inaad hashtagga aad sii faafisaan waxaan u mahad celinayaa bahda heeganka ah
hadda xaggaa iyo jigjigaan u yara gudbaynaa waxaan soo dhaweynayaa ogbaad qadar xuseen oo ah qoraa daayar oo ka socota magaalada jigjiga buuggeeda ayay nala wadaagi doontaa waqtigana aad buu kooban yahay waxaanu ku siinaynaa 4 daqiiqo ama 5 daqiiqo oo keliya soo dhawow ila soo dhaweeya gabadha si fiican بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهرين ماذا شو سلام يا دمانتو مقعي وقبال خضر حسين قراية كسعوتا ديغانكا سومالي ذا وحان وهرين أمباليين يا bulshada reer laascaanood dhalinyarta duqeyda waxgaradka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer laascaanood sidoo kale waxaan mar labaad salaamayaa martida kala duwan ee wadamada kala duwan ee caalamka ka yimiday sidoo kale waxaan mar kaste hambaleynayaa bulshada reer laascaanood oo aan leeyahay bagaad nabad ku gaadheen maanta oo kale waxaan ahay qoraayad ka socota naadiga curis madaxa waaxda akhriska iyo qoraalka naadiga curis dhalinyar yacni naadi aasaasan 4 sano oo maxay deegaanka naadiga ugu horeeyay deegaanka Soomaalida laga aasaasaa naadiga curis haddaan in yaraan warbixin idiga siiyo waa naadi 4 sano aasaasan sidoo kale waa naadigii ugu horeeyay ee soo saara qoraayigii ugu horeeyay deegaanka oo wiila sidoo kale waa naadigii ugu horeeyay ee soo saara qoraayigii ugu horeeyay deegaanka oo gabadha naadiga curis sanadkan 2019 wuxuu furay 19 bishii Oktoobar buugeygii oo ah buugii saddexaad ee uu sanadka furo waxaan hambaliyo idiga wadaa bulshada reer laascaanood anigoo ku hadleen dhalinyarta deegaanka naadiga curis iyo dhammaan maxay cid kasta oo kilka shanaad dhalinyarteeda waxaan hambaliyo idiga wadaa yacni jecel akhriska iyo qoraalka dad jecel horumarinta afkooda hooyo dad ku hawlan mar walba inay soo saaraan qoraaga maanta jooga qoraagii beri bedeli lahaa dad ku hawlan in afka Soomaaligu noqdo afka ugu horeeya adduunka ugu horumarinta badan dad ku hawlan ballaarinta yacni dadii didiilada iyo hamigoodu yahay inay meel gaadhaan waxaan mar walba idigu hambaleynayaa maxay in maanta oo kale aad gaadhaan waa yacni waa waxaad wada sugayseen waxaan rajaynayaa inaan sanado badan idigala soo qayb geli doono in aanu noqon xafladii hore bandhigii u horeeyay uu noqdo bandhigii u horeeyay sanado badan albaabada u fura waxaana marna iloobi karin bulshada reer laascaanood oo ah dad goba soo dhaweyn yacni iyo soo dhaweyn ballaaran aan ka helnay waa magaalo aad iyo aad qurux badan waa magaalo yacni horseed ah waxaan xaggan idinla wadaagayaa buugayga magaciisa waa Damaqiyo Dareen waa buugii u horeeyay ee deegaanka gabadh qorto waa buug ku qoran yahay sheeko jacayla buugayga Damaqiyo Dareen waxa ku qoran qiso dhab ah oo buugayga waxa ku qoran sheeko jacayla oo dhaba sidoo kale waa buug ay soo ma dhihi karo waan qoraan waa run laakiin waa buug layla garab qabtay yacni haddii aanan helin dad igu dhiiriya buuggan waxaan aaminsanahay inaanu maanta laascaanood isagoo socda anigoo wada annagoo idigala qayb gelayna laascaanood international book fair inaanu soo imaadeen xagaa waxaan u mahad celinayaa oo aanan iloobi karin yacni naadiga curis la'aantii halkan maana imaadeen buugaygana ma soo baxeen waa naadi
aan dhihi karo maanta waxaan matelayaa oo aan ahay dhammaan curis oo yacni ugbaadahaana mar walba waan idin jecelnaa waan idin soo dhawaynaynaa aad baan idin salaamayaa waan idin hambalyaynaya marka waadi mar labaad bulshada reer Laascaanood waad mahadsantihiin aad iyo aad bay u mahadsan tahay qora ugbaad iyo naadiga curis ee magaalada jigjiga nagala jooga sacab baan kusoo dhawaynaynaa mar walba qalbi furan haddaan nahay gobolka sool waxa weeye barnaamij qurux badan baa noo soo socda England show ma lahayaa may soo socotaa okay hadda waxaan u yeerayaa abwaan hoobaan inuu halkan yimaado si uu ila soo dhaweeya abwaan maxamed sakariye oo ah abwaan marka roobku uu da'ayo dhibicda markay maqasho sugaantiisa ay tartiib iska wareegto waa abwaan buuruhu ay ixtiraamaan shimbiruhu ay ka haybaystaan badda abwaan maxamed zakariya soo dhawow ya mid baad iska jiraysa abwaan soo dhawow aad iyo aad bay sharaf iigu tahay inaan kugu arka magaalada Laascaanood inaad noogu timaado abwaanka garow uu nooga yimid wuxuu ka tirsan yahay golaha mahigaan oo ah gola halabuur ninkii saaxiibkay ahaa axmed kelwe igu salaam markaad tagto xagga soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقهرين الله سبحانه وتعالى بمهد اسكله مر لبعد نقول كل مية أما مرر بدن نقول كل مية بدش قروح ذبي قايها بدن مهد إلهي كبعدي أما كقضى لوحانو مهد علينا يا هيا ديس اس او في اس في او قدوميه هذا عبد الكريم سعيد او سعيد برنامج كان معقول كهين سيد ولا الذي يجيه الرئي شاقان معقول ككدجي أود إلهي يو إذا كإلهي كقدال ذكر أيه برنامج كان وحياه شقياني وحكم بده حوله يحوق يحرق عنه كلا قادان ومركان فليي وحنا ذكر يا حوله أو مالك أما مالجلنته أما فلنته دنك دقارها هي داس أيا فلسي كنا مهتسن وأنا وحنا ذكر أيه وحي كده ينكران عدة كلا أرمها بالشدة ودق دقاقده sidoo kale barnaamijkan waxaa ka mid ah waxyaalaha uu shaqeynayo waxaa ka mid ah xoogga ka mid ah xooggaana waxaan odhan karayaa waxaa in fara badan ku dadaashay tabar fara badan ku bixisay dalada mid soo jooji kamerada hadda waxaana soo gaaray qoladii dhaqanka waad arkaysaan quruxdaas nala soo dhaweeya ha loo istaaga si fiican ha loo soo dhaweeya maasha allah dhaqankeenna waa astaanteenna waa muuqaalka soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada waxaanu ku jirnaa bandhiga caalamiga buugaagta Laascaanood oo galay maalintiisii labaad
gelinkii dambe waxaa halkan nagula sugan qorayaal badan oo meelo kala duwan ka kala yimid hadda waxaana soo gaaray qolyihii hiddaha iyo dhaqanka nala soo dhaweeya soo dhawaada soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waxaad arkaysaa agabkii hiddaha iyo dhaqanka magacyadu ha kala duwanaadaan laakiin muuqaalku waa isku midkii qoloba waxaa laga yaabaa inay wax u taqaano qola ahaan yidhaahda qolaa dhiil yidhaahdo marka waa agabkii guud ee xoolaha iyo loo isticmaalayay waxaa hogaaminaya waad arkaysaan saaxiibkay saciid abwaa saciid murtimaan oo mar aan keeni doona halkan hortiina si goobta u laha waa keeni doonaa saciid insha allah soo dhawaada saciid hadduu saarka ku dhufteed ay shimbiruhu way ma duulayaan waxaan ka yaabayaa laakiin inay dad badan soo dhawaada noo fariista soo dhawaada abwaa saciid haye soo dhawow murtimeer markaan tagay gobolka sool sanaag sahan aanu diraysay lacbata laala maray socdaaleen dibadda tegay sanciya suuriya dhex maray ilaa saxaaraha galbeed siduu sawirku igu baxay amay saadaashu tahay waxaa tahay ceeb saliin sadriga laabtaa ku jecel dhaftaad saxan saxa u tahay sooma matalida saciid sinjiga soomaaliga timaha sida saynta gari sanqaad iyo socod habboon asluub anshax suubaniya soodkaaga lagu qanca siqda xirriya salow ebaa aduu sida ubax jacayl sariir ila seexataa goortaad soo sara kacane sariirtaan keli ku ah sidaa nahay adiba tahay ma soo toostaa saqdha hadda waxaad noo sii soconaya panelkii abwaag naga raalli ahaada soo dhawaada soo noqono ruxunka yar ee quruxda badan ka gadaal waxaynu jalooci doonaa baanaladeenii socday mid ka mid ah oo midaan dareemayo kuna kalsoonahay inuu yahay baanal 100% xiiso badan dadka u soo diyaar garoobay meelaha fogfog uga yimi xaafadahoodii iyo haddaba ku samogeliya waxbarashadoodii uga soo safray inay wax ka faa'iidaystaan ay wax fara badan ka faa'iidi doonaan waxaa ila fadhiya stageka ama masraxa walaalkay saaxiibkay qolada suugaanyahanku waxaan idhaahdaa anigu waa isku qabiil in adeerkay qayb baan moodi doonaa xaggii haybta waxaan ka hadlayaa xagga mawduuca maxamed sakariye xirsi oo ka tirsan golaha aanu jaalka ku nahay shaqo wadaagta ku nahay arrimaha bulshada dhanka suugaanta ee mahigaan ahaana guddoomiye ku-xigeenkii hore maxamed sakariye wuxuu inooga soo sodcaalay magaalada ee xarunta gobolka nugaal si uu bulshada reer laascaanood barnaamijkan quruxda badan ogala qayb qaatay isagoo matalaya golihii qiimaha badnaa ee mahigaan waxaan ku kalsoonahay 100% ugana mahadcelinaynaa shacab weynaha reer laascaanood sida quruxda badan ee ay isu dhegaysanayaan ay noo dhegaysanayaan ee isu ixtiraamayaan taasi waxay ka turjumaysaa bisalka aad u qabtaan wax kala faa'iidaysiga bisalka aad u qabtaan walaaltinimada bisalka aad u qabtaan isdhexgalka bulshada in faraha badan laga yaabo in seerayaal iyo ay xayndaabyo ku kala jireen afeerkan ka horreysta ee walaaladayda marti ma tihidin laakiin sida dhaqanku ahaa qofku markuu gurigiisa ka soto guri kale u soo hoydo saas marti ku yahay ee si kale marti uma tihidin gobolkiinni baad joogtaan waa dareemi karnaa barnaamijkii u horreeyay aanu qabanay dhaliilo fara badan annaga aqarsan inaanu leenahay dhegta hoos noogu sheega idinka oo ma garanaysaa si cidna xamanaysaan oo kale sida kan ka ku xiga aanu isaga saxno wixii aanu ku wanaagsanay annaguna dhiirigelin ka qaadanay noo sheega walaalada kale gobolladii kale mooyinkii kale naga gaadhsiiya intaas barnaamijkan qiimaha badan waan ku faraxsanahay inaan kala qayb qaato waqtiga kooban daraadii waxaan doonayaa bal inaad in yar aad noo marto bulshada faraha badan si aynu isugu xidhanno bal taarikh nololeedkaagii anigu waxaan idhahdaa marka qolyuhu bada saxaafaddu aanu suuraysanayno anigu taarikh nololeed dee malihiyo weli waa yara waxaan safiraya sida jumhuriyadda xagga guga inaad iga yartan tahay baan filaya
bal inaad xagga waxbarashada eedeba ku sama ogol yahay iyo hawlahaaga marka laga kaalayo maadaama aan sheegay golihii mahigaan iyo teatarka aad noogu timi annagoo ku faraxsan inaad bal in yar aad noo guud marto waa mahadsan tahay dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii aad baan ugu faraxsanahay madashan qiimaha badan inaan joogo anigoo ka imi magaaladii Garowe matalaya golihii mahigaan iyo halabuurkii halkaa joogay ee aynigayga ahaa intaa markaan ka imaado islaan ciisa wuxuu yidhaha qof walba salaanta meeshuu kaliya ka qaato waxaan leenahay reer laascaanoodow marti iyo mudanayaalba waxaan leeyahay qof walba salaanta meeshuu kaliya ka qaato dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii anigu dee mana yeri mana weynayo haddaan dhinaca soomaali dhaqanka soomaalida u leexdo xilli la oran jiray xaasqaboojo 1980 iyo dheeraadkii ahaa ayaa waxaan ku dhashay nugaal meel la yidhaahdo gelm culus oo Garowe u jirta 40 kilomitir dhinaca waqooyi bari kaga aadan baadiyahaasaan ku dhashay oo ahaa waxaana ku dhashay reer 5 wariyaad ee xooluhu ay yihiinba ka kooban leh oo hodan ku ah halkaasaan kusoo barbaaray kadibna magaalo ayaan imi waxbarashadeedii asaasiga ahayd ilaa heer jaamacadeed waxaan ku qaatay magaalada Garowe waxaan ka baxay jaamacadda bariga Afrika ee kuliyadda maamulka iyo maareynta ganacsiga business administration ee jaamacadda bariga Afrika inta ka dambeysay meelo kala duwan iyo diblooyin kala duwan ayaan qaatay halabuurka kooban ayaan ahay waxaan ahay aabe 7 carruur iyo hooyadood u joogaan waxaan ka shaqeeyaa arrimaha bulshada qeybaheeda kala duwan dhaqanka iyo dhalinyaradana aad baan ugu dhaqdhaqaaqaa inahaas ayaa waxaan oran karaa waan taariikhda nolodkii ka meelaas jooga aad buu mahadsan yahay walaalkay maxamed sakariye awal waxaan is lahaa 12 sano kaan weyn yahay anigu da'diisa sheegi maayo laakiin waa isku dhadhownahay markuu da'diisa inoo sheegay ka gadaal inta markaanu ka nimaadno barnaamijkeena aynu guda geli doonaa waqtigoo kooban daraadiina aan jecelahay inaanu isku fallaysiino si aynu uga faa'iidaysano walaaladana kale ee panelka inagu xiga bal marka koobaad intayna u gelin kolley golihii mahigaan marka la soo qaaday sugaan baa la xasuusanaya weliba mid aad u qiimo badan baa la xasuusanaya bal taa intaynu u gelino intaynu dib u yara dhiganno waxaan doonayaa inaan su'aal ku weydiiyo walaalkay maxamedow